بسم الله الرحمن الرحيم دمان umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan waa idin salaamay salaan kadib waxaan rabaa halkan in ay ku soo gudbiyo muuqaal kooban oo markaan uga hadlayno magaalada Madiina al-Munawwara sidee ayay u ekeyd ama qaabkee ayay u dhisnayd ama u ekeyd magaalada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee Madiina al-Munawwara xilligiisii marka sawirkan wuxuu muujinayaa qaabkii ay markaa u dhignayd magaalada Madiina al-Munawwara magaalada Madiina waa magaalo ay markaa ku baxaan ama ay ku yaalaan ama ku badan yihiin geedaha markaa timirta ah magaalada sidoo kale markaa xilliga waxa dhex mari jiray ama dhex mara togag ama waadiyo ay ka mid yihiin waadi Budxaan waadi Ranna iyo waadi Qanna togagaas markaa ayaa xilliga mari jiray hareeraha magaalada marka waxa ahaaday waxa la yiraahdo xaraat burkaaniya sawda marka tuurar markaa ka samaysan dhagxaan madmadow oo aad u af badan marka ay adagtahay in marka qofka bini'aadanka ruuxa bini'aadanka inuu ka soo gudbo maadaama ay aad u af badan tahay waana sababta marka mushrikiintu ay ugu imaan jireen markay soo weerarayeen magaalada Madiina dhanka markaa waqooyi iyadoo aynu ognahay in magaalada Makka ay ka jirto dhanka magaalada Makka ay jirto dhanka koonfureed marka magaalada Madiina la joogo dhanka koonfureed ayaa marka laga aadaya magaalada Makka marka hareeraha magaalada ay soo mari jireen xagga ayay ka soo geli jireen waqooyiga ayay ka soo weerari jireen sidoo kale halkan waxa ahaaday marka duruq ama si wadooyin aad u yar yar oo loo yaqaano thaniyaat alwadaa waana meeshii Abu Bakar iyo Nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka soo galeen magaalada halkaas ayay ka soo galeen kadib marka ay soo galeen marka xaggaas ayay soo mareen waxay ku soo degeen reer marka Amr ibn Auf ay marka ku soo degeen Nabiga sallallahu alayhi wasallam markaas waxa uu joogay ayaamo ayuu joogay waxa uu ka asaasay masjidkii ugu horeeyay islaamka loo asaaso ee Quba Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت له كأجر عمره marka qofkii ku tukada laba ragcadood masjidka Quba wuxuu la mid yahay soo markaa soo cimraystay Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ka soo dhaqaaqay halka ay marka salaadii duhur ay u timi inda bani Salim marka reer bani Salim ayuu marka ku tukaday kadib marka hashi Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ay soo baxday waxa ay timi halkaas oo marka loo yaqaano magaca lahaan jirtay waxa la jiray mirbid ay la jiray waxaana iska lahaa marka laba agoomood ama laba wiil oo la kala oran jiray Sahal iyo Suhayl Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo soo bandhigeen laakiin waa uu ka diiday maadaama ay dad masaakiin ahaayeen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ayaa gaday booska ka iibiyay marka wuxuuna ka siiyay 10 diinaar oo dahabi ah ayuu ka siiyay waana marka waxa laga dhisay masaajidka Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo guriyihii marka zawjaatu rasuuli sallallahu alayhi wasallam ayaa halka laga dhisay xagga marka waxay noo ka muuqda buurtii Uhud ayaa halka noo ka muuqda marka dhererkeeda waa maxay waa 8 kiiloomitir waaye ballaceedu marka dhanka kan ee galbeedka waxay ka tahay 2 kiiloomitir dhanka marka barigana waxay ka tahay 3 kiiloomitir halkan waxa ahaatay Jabal Rumaat waa buurtii marka Nabiga sallallahu alayhi wasallam dagaalkii Uhud uu saaray kontonka saxaabi ee falaarleyda halkaas ayaa marka Jabal Rumaat la yiraahdaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Uhud min jibaal al-janna sidoo kale Nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiskan wuxuu ku yiri oo saxiixa rajayna inuu saxiix yahay Uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu ay sallallahu alayhi wasallam waxa weeye kan isagana waa maxay geed khandaq marka waa maxay godkii la oran jiray khandaqa waana godkii marka la qoday xilligii marka mushrikiintu marka ay soo bahaysteen marka gaashaanbuurta guud ahaan wax ka koobnay ilaa 10 kun oo marka mushrikiin ay ka koobnaayeen
waxayna rabeen marka inay soo weeraraan taas markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa ayuu markaa la tashaday tashi dheer kadib markaa Salmaan al-Farisi saxaabigaas ayaa marka wuxuu usoo bandhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam markaa in god markaa la dhiso godka marka dhererkiisu wuxuu ahaa 2 kilomitir 750 mitir ku dhawaad 3 kilomitir oo markaa rubuc kilomitir markaa dhiman ballaca godka wuxuu ahaa 8 mitir cumqiga ama gunti godkuna wuxuu ahaa 4 markaa mitir waxayna markaa asxaabtu ay ku qaadatay guud ahaan marka inay dhisaan godka noocaasa ilaa 6 bari ay ku qaadatay dhammaantiin aad baa u salaamaya intaas ku soo koobaya insha Allah muuqaalada nooca kana taxana ay ahaan doonaan insha Allah taariikhda islaamka iyo ahdiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hadli doonta aad baa inii salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh